Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaal aan kaga hadlayno xikmadaha geesi dhihi jiray sideen u dhoola caddeeyaa iyadoo Qudus gacanta Kiristaanka ku jirta. Jaasuuska cadowga oo dhan ayuu jebin karaa, balse khaa'inul waddanka wuxuu dulayn karaa dalkiisa iyo ummaddiisa oo dhan. Ma jirto cid ka adkaan karta ummadda dhalinteeda ay soo jeedo. Haddii aad rabto inaad u noolaato sidii qaran sharaf leh, ha ka tegin dhaqankaaga. Marka ay madaxdu bilaabaan inay mudnaanta siiyaan ilaalinta noloshooda, ma awoodaan inay difaacaan dalka iyo qaranka. Khaa'inul waddanka waa in si kasta oo suurtagal ah loo ciqaabo. Waxaan arkaa in ereyga Falastiin uu dhiig ka qulquli doono abid. Haddaad rabto inaad ummad dagaal la'aan dumiso, sinada iyo qaawanaanta ka dhig mid ku dhex baahsan dhallinyaradeeda. Saliibiyiinta iyo Yahuudda waxay isku dayi doonaan inay colaad ka dhex abuuraan ciidanka iyo ummadda Islaamka xilli kastoo la joogo. Ma garanayo in diinta Islaamka lagu faafiyey seef ama akhlaaq, balse waxaan aad u ogahay in seef loo baahan yahay si loo ilaaliyo Islaamka. Marka seefta muslimiinta, naag iyo khamri ay galaan, waxay noqotaa cad bir ah. Khatar uguma jiro seefta malaayiinta Kiristaanka waxaan khatar ugu jiraa malaayiinta muslimiinta ee ku qarqismay cabidda sharaabka khamriga. Awoodda caadooyinka xun iyo caadooyinka wanaagsan waxaa la gartaa marka la isku dayo in la jebiyo. Quraanka wuxuu idin siiyey mabaadii ah in haddii dagaal uu dhaco la dagaalamo, haddii kalena lasu diyaariyo dagaalka. Haddii aad rabto inaad si foolka fool ah u aragto Islaamka, waa inaad kala garataa saaxiib iyo cadow. Xanuunka xurriyadda ayaa ka fiican xanuunka addoonsiga. Meesha uu rootiga ka qaalisnaado mushaarka shaqada, 3 shay ayaa raqiis noqda: sharafta dumarka, sharafta ninka ragga, iyo dhiigga qofka muslimka ah. Madaxweynaha dowladdiisa ayuu ilaaliyaa, mujaahidkuna dalkiisa ayuu nafta u huraa. Hoos u dhaceenu waxaa saldhig u ah ku sakhraamidda taajka iyo jaceylka dahabka. Aniga waxaan ahay addoonkii Alle ee miskiinka ahaa. Rasuulka Alle aniga ayuu ii wakiishay difaaca ummaddiisa. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.